dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sportiga ee hoyga Soomaalida Holland caawana waxaan idinku hayaa barnaamijka wadannada Netherland iyo Belgium ayaa si wada jir ah uga dalbay ciyaartoygii hore ee caanka ahaa ee kubadda cagta Ruud Gullit in uu noqdo astaanta iyo dadka magaca weyn kula sportiga ee koobka adduunka ee kubadda cagta 2018 ama 2022 loo adeegsan karo magacyadooda ama sharaftooda si loogu qabto si wada jira labada dal ee Belgiumka iyo Netherland iyo Belgium ayaa si aad u raba in ay noqdaan qabanqaabiyeyaasha koobka adduunka ee kubadda cagta ee sanadaha 2018 ama 2022 waxaana iminka si aad u bilaabeen wada shaqayn weyn oo dhinaca sportiga sida kubadda cagta u dhaxaysa labada wadan waxaan wadan waliba iminka soo bandhigaya ciyaartoydiisa ugu caanka ah ee kubadda cagta kuwaas oo laga rabo in ay FIFA xiriirka adduunka ee kubadda cagta ka raadiyaan ama ku qanciyaan in dalalkooda lagu qabto ciyaaraha adduunka haddaba mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee caanka ahayd ee dalkan Holland Ruud Gullit ayay labada dalba sheegeen in ay u xil saareen in uu noqon doono ninka madaxda u noqonaya ciyaartoyda laga rabo inay adduunka ku qanciyaan in wadannada Belgiumka iyo Netherland oo iskaashanaya lagu qabto koobka adduunka ee kubadda cagta Ruud Gullit oo ka mid ahaa haddaba shakhsiyaadkii ugu horreeyay ee madowga ahaa ee xulka qaranka Netherland u dheela waxa kaloo uu soo ciyaari jiray naadiyada ay ka mid yihiin Feyenoord, PSV Eindhoven, AC Milan iyo Chelsea waxa haddaba loo joogi doonaa in labadan dal ee yaryari iyagoo iskaashanaya waa Netherland iyo Belgium ay ku guuleysan doonaan iyo in kale qabanqaabada ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta oo ay naawilayaan sanadaha 2018 haddii ay u noqon weydana 2022 Tobraha qaranka dalkaasi Argentina Diego Maradona ayaa daboolka ka qaaday in uu laabay buugii ama sheekadii ku saabsanayd ee muranka badan ka jiray ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara Argentina Juan Roman Riquelme in uu kooxda qaranka South Africa u raacayo iyo in kale waxaanu sheegay in su'aalahaas oo kale aan dib dambe loo weydiinayn waxaanu ka dalbay in uu jaraa'idku ka gaabsado su'aalaha noocaas oo kale Maradona ayaa sheegay in aanu ciyaartoygaas isaga dib ula hadlay waxa uu hore u sheegay in uu hore ugu yeedhay ciyaartoyga xilliyadii loo baahnaana uu iman waayay waxaanu sheegay inuu ninkaasi ku wanaagsan yahay khadka dhexe oo uu udub dhexaad u noqon karo kooxda qaranka ee dalkiisa Argentina hase yeeshee aan imika loo baahnayn in isaga dib loo barbariyo murankan ayaa bilaabmay kadib markii uu tababare Maradona ku tilmaamay Juan Roman Riquelme oo khadka dhexe si wanaagsan uga ciyaara dalkaasi Argentina in uu yahay nin ciyaarta oo kulul qaboojiya oo kubadda warwareejiya waxaanu arintani ka cadhaysiisay ciyaartoyga isaga ah ee Riquelme inkastoo xiriirka kubadda cagta ee Argentina ka dalbeen tababaraha in aanu ka tagin ciyaartoygan haddana waxa imika soo shaabaxayo oo ay u muuqataa in uu Maradona aanu sheekada dhagay jalaq u oran Riquelme oo 30 jir ah ayay u badan tahay in uu ka tago oo aanu ku darayn kooxda koobka adduunka ee Maradona la tagayo dalkaasi Koonfur Afrika John McEnroe oo ahaan jiray isaguna ciyaartoy caan ku ah tenniska laguna yaqaanay dabeecad xumo marka uu garoonka soo galo ayaa sheegay in uu Roger Federer yahay ninka qarniga ugu caansan ama ugu ciyaar wanaagsan ee soo mara garoonada tenniska lagu ciyaaro inkastoo mar hore loo weydiiyay uu ka gaabsaday inuu magacaabo ninka uu isleeyahay uu ugu ciyaar wanaagsan yahay tenniska hase yeeshee markan waxay noqotay in aanay ahayn arintu in la iska indha tiro oo ay ciyaarta tennisku qudheedu ay yeelatay nin magac weyn ku leh ama boqorkeedii Roger Federer ayaa noqday ninka ugu guulo badan uguna ciyaar wanaagsan ee qarnigan qaybta tenniska John McEnroe ayaa hadalkiisa sii watay waxaanu yiri waxaan si weyn u jeclaa ciyaartoyda caanka ah sida Rod Laver iyo Pete Sampras oo cawska aan loogu imaan karin sida Wimbledon oo kale laakiin Federer wixiiba uu isku dhuftay waana mucjiso kale waxaanu imika noqday mid goob kasta oo tenniska lagu ciyaaro aan loogu imaan karin cawska iyo dhulka nooc walba ee lagu ciyaaro tenniska Roger Federer oo u dhashay dalkaasi Switzerland ayaa ku guuleystay ciyaaraha tenniska ugu caansan adduunka ee loo yaqaan Grand Slam waxaanu ku guuleystay Australian Open sanadihii 2004 2006 2007 iyo 2007
iyo 10kii Wimbledon oo lagu qabtay Ingiriiska 2003 2004 2005 6 7 iyo 9kii US Open ayuu iyadana ku guuleystay oo uu 2004 5 6 7 iyo 8 iyadana ku guuleystay sanad walba waxaad moodaa in uu isagu iska lahaa aadna loo saadalinayay iyo waxa uu kale ku guuleystay ugu dambeyntii waa Roland Garros oo lagu qabto dalkaasi Faransiiska waana takiliya ee ku adkaatay ee uu sanad walba uu yimaado lagaga badin jiray ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay sanadkii 2009 barnaamijkii sportiga haddaba hoyga Soomaalida horan dhageystayaal caawa intaas ayuu inoogu dhayahay inteeda kalena waxa inoo haya caawa Maxamed Cabdi Yuusuf abuna Thank you.